السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا قيبت السدحات كورسada hababka ilma korinta aan qaybtan saddexaad waxay ku magacaaban tahay authoritative style ama waalidka awoodiisa isticmaala waxaan kasoo hadalnay ama soo qaadanay laba qaybood qaybta koowaad oo ahayd waalidka kaliya taliska ah qaybta labaad oo aan kusoo qaadanay waalidka dabacsan midaana waxay ku saabsan tahay waalidka isticmaala awoodiisa casharkan koowaad wuxuu ku saabsanaan doonaa muxuu ahay inaan description oo ama qeexitaan guud aan ka samayno habkani muxuu yahay sidii aan horeyba casharadii lasoo dhaafay aan idinkugu sharxay hab walba waxaad ku xusuusataan hal eray oo idin xusuusinayo muxuu yahay habkaas hababkii hore dib ayaad ma arkin oo u daalacan doontaan habkan marka shaashada dhinaceedaas waxaad uga jeedaan waxaan ku qoray ka waran marka mar walba markaad habkan oo waalidka awoodiisa isticmaalayo laana xogaa fasiraad waxa laga yaabaa in awoodi ay xogaa si kale loo fasiro laakiin macnihiisu waa authoritative style badanaana habkan waa hababka laga isticmaalo wadamada galbeedka oo aan ku noolnahay maaragtay laga yaabo inaad wadamo kale ka fiirsanaysid koorsadan ama aad ka qaadanaysid macna ma laha laakiin ujeedada waxa waaye inaan barano habkee wanaagsan inaan isticmaalno iyo meeshee ku wanaagsan waa inaad si fiican ma arkino note-kii aan idin sheegay ku qoranaysaan casharka waxaad ka fahanteen dhinaca kalena reflection ama in tadabburkiina maxay idinla tahay ama dabeecadaha adiga la sheegayo ma aragtay wixii kugu soo dhacaaday inaad ku qortid marka hababka la amaano oo lagu amaano wadamadan galbeedka ayuu ka mid yahay waxyaabaha lagu garto waan ka hadli doonaa laakiin intaanan gelin erayada lagu garto waxaan rabaa in aad xasuusataan oo kale qaybihii kale waxaan kusoo sharxay labo waxaa jirto cabir oo lagu tilmaamo hababka oo dhan waxaan nidhi diiranaan iyo xakamayn midna xakamayntu ku sareeya diiranaantu ku hooseeya mid diiranaantu ku sareeya xakamayntu ku hooseeya habkan waalidka awoodiisa isticmaala ama authoritative style la dhahayo diiranaantana wuu ku sareeyaa xakamayntana wuu ku sareeyaa waad u jeedaan in labada falaarba ay kor fiirinayso thumbs up ay tahay marka again ogaada haddii aadan ahayn qof isticmaalo inaadan isxukminin laana wax baan baranaynaa sida aan soo sheegay marka cilmiga baranayna waa inaad ma arkin open mind ahaataa hadda marka erayada ama waxyaabaha aad ku garan karto waa maxay waxa waaye wada tashi habkan wuxuu ku salaysan yahay wada tashi waad wada tashanaysaan micnihii ma aha qof baa awood sareeya qof baa awood hooseeya waad wada tashanaysaan adigii ciyaalkii jacayl aan shuruud lahayn aad u muujinaysaa ciyaalka waxyaabo waxaa jirta oo xoogaa oo laga fiican yahay oo marmarka qaarkood aan samayno laga yaabeena in aan ahayn ilmihiin inaan necebnahay laakiin ciqaabta oo kale marnaba ma galayso jacaylka inaad ilmaha kala noqotid moogtahay waxaa la yiri unconditional love ilmaha inuu ka helo waaye jacayl aan shuruud lahayn cunugaada waad jeceshahay haddii xataa uu sameeyo qaladaad ama mistake oo aad ku ciqaabayso ama wax aad ka celinayso soo ma galayaan waxaasi in aad u muujisid ma arkinoo jacayl xumo ama jacaylka aad kala laabato micnihii waxaa jira xataa muxuu ahay hadalka ma kula hadlayo ama ma ku fiirinayo oo kale taas waa laga fiican yahay ciqaabta inay soo gasho ma ahan waxaa kaloo iyadana xoogaa laga dayriyay waalidiin qaarkood inay isticmaal laga yaabo cuntada ma cunaysid ama ma lagu siinayo oo maanta saasaad u gaajisnaanaysa haddii wixii aan kusoo diray maadaama aadan samaynin oo kale waa laga fiican yahay idan arrintaas waxaa kaloo jirto sharciga la raaco oo joogto ah waxaa la dhahaa consistent marka consistentygaasna waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay sida ilmaha wuxuu ku caawinayaa hadhowti iskuulka markuu tago
mujtamaca markuu la dhaqmaayo inuu sharci jiro oo joogto ah jadwal inuu jiro oo la raaco uu baranaya nuqdada saddexaad waxa waaye dimuqraadi ayay ku salaysan tahay habkan macnaheedu dimuqraadina waan fahmaynaa laga yaabe dowladaha qaarkood dimuqraadi inay dhahaan weli laakiin dimuqraadi ahayn markii la fiiriyo laakiin realityga dimuqraadiga sidii markaad maqashid wax kugu soo dhacayo wada tashi wada hadal wada shaqayn intaas ayuu ku salaysan tahay casharkeena labaad waxaan kusoo qaadan doonaa dabeecadaha inkastoo hadda already aan qaarkood tilmaamnay waalidiinta dabeecadaha ay leeyihiin oo habkan isticmaalo. Assalaamu calaykum.